kusoo dhawow kanaalkeena Sheeko Media. Maalin ayaa nin iPhone gadayo kala dhaxay gabar qurux badan oo markaas ayada ka adeeganaysay. Gabadhii ayay muddo dheer wada sheekaysadeen, markaas gabadhii way isguursadeen, maasha Allah. Maalin maalmaha ka mid ah, gabadhii maxay ka codsatay inuu telefoon u gado baraha bulshada u furo. Wuu ka aqbalay una u yeelay. Markuu u furay, gabadhii waqtiyadii badneed baraha bulshada ay ku qaadan jirtay sida Facebook, Twitter iyo waxyaalo la mid ah. Salaadii way dayacday. Marar badan bay meeshaas shukaansi Facebook u gali jirtay. Maalin gabadhii nasiib darro ayadoo jikoniga aaday ayay ka tagtay telefoonkeeda u furan. Markaas ninkeeda wuu arkay misidihii isku direen yar saaxiibkiis asaga, inay iska codsadeen inay isguursadeen. Nin hadda ay ku qanacsaneen inay jeceshahay asaga. Waxyaalo jecel ayay Facebook kula wadaageen. Inkastoo khalad ay tahay in la shukaansado naag la qabo. Markaasuu dhahay Ilaahay marar badan buu kuu ceeb qariyay. Salaadiisa haddaad tukan lahayd maalintii 5 mar aad hor istaagi lahayd oo salaadiisa tukan lahayd, waana lagu ceeb qarin lahaa sida hore lagugu ceeb qariyay. Laakiin maanta sheekada fashilan. Maxaa kugu kalifay anoo zaygaada inaad nin kale ku guursato misna been ani aad iga alifato oo dhahdo ninkeyda waqtiyo badan ani lama qaato howlihiisa shaqadu ku mashquulsan. Taasi ani ma i qabataa inaad idhaahdo. Maamadii way walwashay, walaac badan baa soo food saaray, wayna kala tageen inkastoo hal cunug ay u haysay. Markaas waxaan idiin sheegayaa in qoysaska badanaa ku kala dumaan baraha bulshada, mana la xisaabin karo inta qoys oo baraha bulshada ku dun. Waa walaalkiin oo idin leh nabadgelyo.